qof walba muraadkiisa macsilaan gacanta Allah ka saaro. maanta waxaa idin la wadaagayaa dhiciska waxyaabaha sababa ama gabdhaha dhiigga degdeg uga imaanaya ama ilmaha degdeg uga soo xoormaya waxyaabaha aad iska ilaalinaysid. hilibka haddii aadan si fiican iskaga karinin wuxuu sababayaa inuu minka ama murqihiisa isku keeno oo xanuun fara badan ilmihiina banaanka ay usoo xormaan ama ilmaha banaanka dibadda ay usoo baxaan ama ay dhicis ama dilan isku bedelaan ama dhiig fara badan inuu kaa imaado ayuu sababaa. kan labaad ukunta ceeriinka asagana wuxuu sababaa inuu degdeg ilmaha banaanka usoo xooro ama dibadda uu soo baxo ama dhicis ama dilan uu isku bedelo dhiig fara badan ayuuna degdeg u keenayaa. wuxuuna isku keenaa murqaha makaanka. caanaha dhayda haddii aadan si fiican iskaga karkarinin wuxuu sababayaa inuu murqaha makaanka isku keeno oo qof dhiig caada ku dhacayo oo kale asagana ama caanaha uu kasoo tuuro ilmaha riximka ku jiro. yoogarka baaquliga ku jirana sidoo kale ha cunin hana isticmaalin bilaha hore ee uurka aad leedahay. jiiskoo kale ama gaaska ama farmaajada sidaa u taqaanidna ama bowdarkaasoo kale ha isticmaalin xilliga uurka aad leedahay. bilaha hore ha cunin cananaaska. haddii cananaaska aad cuntid waxaa sababaysaa in aad degdeg fool u heshid, fooshaasna ay kaa imaadaan ilmihii yaraay ee riximka ku jirana ay dibadda usoo baxaan. bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaaliga qaaliga kusoo dhawaada channelka Leelo Official. haddii aad igu cusub tihiin subscribe, like, comment, share. haddii aad hore ila joogteenna like, comment, share dhammaantiin waa idinkaga mahad celinaa sida quruxda badan la mar walba ila socotiin. mahad celintiina marnaba kama daalo. waxaa idin leeyahay meel kastoo dunida dacladeed ka joogtiin waqtiga idin tahay baa ha idin wacnaato. dhammaantiinna waxaan idin leeyahay soo dhawaada gabdhahayga wiilashayda. qof walba muraadkiisa macsilaan gacanta Allah ka saaro. maanta waxaa idin la wadaagayaa dhiciska waxyaabaha sababa ama gabdhaha dhiigga degdeg uga imaanaya ama ilmaha degdeg uga soo xoormaya waxyaabaha aad iska ilaalinaysid ood ma aragtay dhibaatooyinkaas mar walba aad la kulmaysid, xanuunka faraha badan oo rixinka mar walba ku xanuunayo. hilibkan gaduudan ee meesha aan soo dhigay, hilibka haddii aadan si fiican iskaga karinin wuxuu sababayaa inuu minka ama murqihiisa isku keeno oo xanuun fara badan ilmihiina banaanka ay usoo xormaan ama ilmaha banaanka dibadda ay usoo baxaan ama ay dhicis ama dilan isku bedelaan ama dhiig fara badan inuu kaa imaado ayuu sababaa. hilibka aana si fiican loo karinaynin. haddaba hilibka inaad si fiican iskaga karkarisid isku day, waayo riximka murqaha gabar sida caadada ay ugu dhacayso kale ayuu kuu xanuunayaa haddii aadan si fiican iskaga bislaynin ee ceerin asagoo ah ama la dubay. haddii aad cuntid wuxuu kuu sababayaa inuu dhiig kusoo haayo oo kale ama dhiig inuu kugu dhacayo. xilliyada dhiigga kugu dhici jira xanuunka murqaha makaanka ee kaa qaban jira ayuuna kadibna ilmihii dibadda ayuu usoo baxayaan. kan labaad ukunta ceeriinka asagana wuxuu sababaa inuu degdeg ilmaha banaanka usoo xooro ama dibadda uu soo baxo ama dhicis ama dilan uu isku bedelo dhiig fara badan ayuuna degdeg u keenayaa. wuxuuna isku keenaa murqaha makaanka. haddaba ukunta waxaad samaysaa si fiican iskaga karkari. ukunta waxaad samaysaa saliid ha ku dubin. waxaa biyo intaad dab ka saartid biyaha aad ugu karkari. kabacdina waxaad samaysaa markuu ku qaboobo qobka koraad ka qaadaysaa, dhexdiisana iyo biyo lahaanin. si fiican markuu u karo 2 xabo subaxda ku quraaco aad ayuu u wanaagsan yahay. balse haddii ceerin camal uu noqdo wuxuu sameynayaa murqaha makaanka ayuu intuu isku keeno oo kadibna qof dhiig caado ku dhaco oo kale dhiig ayaa kaa imaanayo. ilmihii makaanka ku jirayna dibadda ayuu usoo baxayaa. haddaba maadooyinkaas ayaa ku jiro sida hilibka, ukunta, cananaaska oo kale, caanaha ma aragta. sidoo kale ukunta waxaan ku dhihi lahay gabaray si fiican iskaga karkari muddo 15 daqiiqo. markaa karkarisid kadib biyaha ka daadi, biyo qabow ku shub. markuu ku qaboobo kadib cun. ceeriinka ukunta ilmaha ayuu wuxuu sameeyaa murqaha ayuuna isku riixaa ee makaanka. ilmihiina sidaas ayay banaanka usoo baxayaan. iska ilaali ukuntii in aad saliida ku dubatid, ku dubo biyaha ku karkarso. sidaas ayaan ku dhihi lahay insha Allah. gabdhihii soo codsadeen waxyaabo badan 4 ilmo ayaa iga soo dilmay, 3 ilmo ayaa iga soo dilmay. dhiciska maxaa sababo? haddaba waxyaabaha sababo waxaa ka mid ah stresska, walwalka, diiqada, waxyaabahaasoo dhan ma aragtay inaad iska ilaaliso isku day. ugxaantaadana daciif inuu ka koro oo kori ugxaantaada mar walba. caanaha dhayda haddii aadan si fiican iskaga karkarinin wuxuu sababayaa inuu murqaha makaanka isku keeno oo qof dhiig caada ku dhacayo oo kale asagana ama caanaha uu kasoo tuuro ilmaha riximka ku jiro. yoogarka baaquliga ku jirana sidoo kale ha cunin hana isticmaalin bilaha hore ee uurka aad leedahay.
jiiskoo kale ama gaaska ama farmaajada sidaa u taqaanidna ama bowdarkaasoo kale ha isticmaalin xilliga uurka aad leedahay ilmaha markay yihiin ilaa 3 bilood bilaha hore 1 bilood ilaa 3 bilood 5 bilood wixii ka dambeeya wax walba waad isticmaali kartaa balse wixii 5 bilood ka horeeyo inaad iska joojisid isku day. Caanahana haddii aadan karkarinin ood cabdid isla markii caloosha ayaa laga qabanayaa, murqaha makaanka laga qabanayaa, dhiig degdeg ayaa ka imaanaya, kadibna ilmihii banaankaas ayay usoo baxayaan. isku day ina caanaha mar walba iska karkarisid, bataatana yogurka ama caanaha garoorka aad iska ilaalisid, jiiska aad iska ilaalisid, ood iska ilaalisid bowdarka rootiga la marsado. waxyaabahaas oo dhan wuxuu sababaa inuu makaankaaga banaanka ilmaha kasoo saaro, kadibna aad dareentid qof dhiig ku dhacayo oo kale. caadada markuu kugu dhacayo uu kasoo dhow yahay, murqaha makaanka ayaa la isku keenaa, maadooyinkaas ayaa ku jiro ee ilmaha soo tuuray riximka iskugu imaanayo. haddaba inaad iska ilaalisid isku day 100% aad mar walbana ilaa ilmahaaga ay ka koraan aad ilaalisid waxyaabaha dhibaatooyinka ku keenayo sida walwalka kalena iska ilaali, waqti horena seex biyo badan nacab. sidoo kale cananaaska wuxuu ka mid yahay waxyaabaha murqaha makaanka isku keeno. haddii uu ilmo kugu jiro bilaha hore ha cunin cananaaska. haddii cananaaska aad cuntid waxaa sababaysaa in aad degdeg fool u heshid, fooshaasna ay ka imaadaan ilmihii yaraay ee riximka ku jirana ay dibadda usoo baxaan, maadaama uu murqaha isku riixayo sida qof dhiig hayo oo kale ee riximkaagana dhibaato fara badan uu la kulmaayo. kuma fiicno. mar walbana isku day inaad iska ilaalisid cananaaska inta aad ilmahaaga ay kasoo korayaan ee riximka. waqtiga la gaaray markaa 9 bilood gaartid wax walba oo kasoo hadlo waa isticmaali kartaa, balse ilaa bilaha hore ee riximka ilmaha ku jiro ha isku dayin inaad cuntid cananaaska, ukunta ceeriinka, caanaha ceeriinka aan la karkarin, hilibka ceeriinka oo yacni la dubo ama saliidda lagu dubo kale iska ilaali. hilibka si fiican iskaga karkari, caanaha ukunta si fiican iskaga karkari. mar walbana waxaa isku daydaa inaad caafimaadka ilmaha aad ka talisid, ood isku daydid inaad ilmahaaga waxyaabaha u fiican aad isticmaashid. hadda gabacda ayaan soo geli doonaa. haddaba ilmahaaga haddii aad mar walba xanuun la kulantid cananaaska iska jooji. cananaaska wuxuu ka mid yahay qataraha ilmaha degdeg usoo saaro ee maaragtay riximka isku keeno, murqaha makaankana hadduu isku keeno dhiig fara badan ayaa ka imaanayo. marka isku day inaad iska ilaalisid ood mar walbana aad taxatirtid waxyaabaha dhibaatooyinka ku keenayna aad dhakhtarkaaga kala tashatid, maadaama aad uur leedahay ilmihiina bilihii hore oo ay ku jiraan, mar walbana aad ka cabanaysa xanuun dhanka hoose ee kumeerka ah. haddaba walwalkana iska ilaali, biyo badan inaa cabtidna isku day, caanahana inaa iska karkarisid isku day ood cabtid. cananaaskana bataatan xilliga aad gaartid 9 bilood isku day inaad si fiican u cuntid, laakiin inta ka horeyso ha isku dayin inaad cuntid maadaama aad uur yar leedahay, bilahaaga horena ay yaryihiin. xanuunka faraha badan ee gudaha ku saabsanna ay isku keenayaan murqaha makaanka ilmihii ama dhiig fara badanna ka imaanayo. haddaba mar walbana ducada rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayrul waaridiin ina akhrisatiin isku daya insha Allah. biyo badanna caba dhammaantiin Allah idin la koriyo.